Maayarka Boorama Salebaan Xasan Xaddi ayaa ka hadlay jabhad ka dilaacday qaybo kamid ah gobolkaasi Awdal oo maalintii shalay ahayd la hadlay qaar kamid ah warbaahinta ka howlgasha gobolkaasi Awdal. Salebaan Xasan Xaddi ayaa waxa uu raaligelin buuxda ka bixiyay jabhadaasi oo sheegay in bulshada ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama ay iskaga baxaan. habeenkii xalay ahaa waxaan warbaahinta social media ku arkaynay jabhad laga dhawaaqay bariga gobolka Awdal horena dhinaca galbeedka jabhad uga jirtay markaa gudoomiye jabhadahan maxaa gobolka ugu wacan waqti xaadirkan kullay bismillaahir rahmaanir rahiim aad ba masatorta kelmadda jabhad laftigeeda ayaa hadii aynu sida aad ugu dhawaaqayso loogu dhawaaqo wax jira noqonaya gobolkan Awdal gaar ahaan degmadan waxa horta nasiib darro ah xalay inaan media ka maqlayay nin direes cusub oo military xiran oo magac jabhadeed sheeganaya haddana laha magaalada laga baxo waa nasiib darro magaalada Boorama mas'uuliyadeeda annaga Ilaahay noo doortay ummaduna noo dooratay inta Ilaahay ka sokaysa kelmadaasina waxay deelqaaf waan ka raali gelinayaa intii ay dhagahooga ku dhacday intii ay dhagahooga kelmadaas ku dhacday waan ka raali gelinayaa cid magaaladan ka bixi karta oo yaani nin duurka ku jira oo oranaya ka baxna ma jirto kelmadaas horta deelqaaf bay ahayd odayga hadlaya laftigeeda waxay ahayd hadalkaasi uu nooc waxa garan maayo magaala Ilaahay anaguna mas'uuliyadeeda naga xisaabtamaya golo deegaan baa loo doortay mas'uuliyadeeda anaga hayna dadku nabad bay iskaga nool yihiin dadka ka baxay leeyahay waa dadka ay magaalada ay caasimadda Boorama maanta caasimadii labaad ee gobolka Soomaaliland ay ku noqotay marka dadka ka baxay leeyahay ku jooga awoodee si saaran waxa weeyaan isaga iyo intii kale waxaan leeyahay arinta ka istaaqfurlayso waxa weeyaan dadku nabad bay ku nool yihiin hadda wax sheeganaysaan sida ay wax u maqan yihiin iyo sida wax idinka tabashadiina loo toosinayo dariiqeeda mara laakiin nabadgelyo darro degmada Boorama iyo agaarkeeda cid ka rida ma ogolin kuwa hore iyo kuwa dambaba gacan bira lagu qabanaya intii hore loola dul qaatayna dib dambe laguma dul qaadanayo